oo ka dhacday xarunta madaxtooyada magaalada Hargeysa waxa goobjoog ka ahaa wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle oo dabadeedna warbixinta noo soo diray xaflad ballaaran oo loogu dabaaldegayay 49 gurada ka soo wareegtay markii Soomaaliland calanka ka qaadatay boqortooyadii Ingiriiska sanadkii 1960 habeenkii 26 Juun ayaa xalay lagu qabtay qasriga madaxtooyada ee magaalada Hargeysa. munaasabadan ayaa waxa ka qayb galay madax sare oo horkacay madaxweynaha Soomaaliland Daahir Riyaale ka ahayn madaxweynaha ku-xigeenka danjiraha ama wakiilka ganacsi ee u fadhiya Soomaaliland dalka Itoobiya iyo waliba mudanayaal ka tirsan aqalada guurtida iyo wakiilada haween tiro badan aqoon-yahano iyo madax ka tirsan hay'adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa. munaasabada xalay lagu soo bandhigay qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo nuxurkeedu ahaa bandhig faneed xambaarsanaa fariin ku aadan ilaalinta nabadgelyada iyo muhiimadda ay nolosha ugu fadhido ayaa waxaa halkaasi ugu horeyn mahadnaq uga jeediyay ka qaybgalayaasha wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Nuur Aamin Ismaaciil oo ku hadlayay afka madaxweynaha kaasi oo uga mahadnaqay dhammaan qaybaha kala duwan mas'uuliyiinta iyo martida ka soo qayb galay munaasabada xalay. fanaaniinta Soomaaliland ayaa halkaasi waxay ku soo bandhigeen riwaayad aad u qiimo badan iyadoo Maryan Mursal Ciise fanaanada caanka markii ay madasha soo gashayna goobtu isu bedeshay madal sacab iyo mashxarad la isla ogsaday. kumay koobnayn munaasabadani fanaaniinta Maryan Mursal ay ka mid tahay inay soo bandhigaan oo kaliya heesaha ku aadan ama ku wajahan dhinaca arrintan. Maryan kadib fanaaniinta kale oo iyaguna ka dhacahaynaya halkaasi ku soo bandhigay heeso ku qotoma sanad gurada 49aad ee xurriyadda sida hees caan ah oo uu hore ugu luuqeyn jiray fanaanka weyn Maxamed Axmed Kuluc hase yeeshee xalay fanaaniin horkacayay Cabdinuur Allaale ay ku luuqeynayeen. madaxweynaha Soomaaliland ayaa telefishinka caalamiga ee Universal waxa uu fursad u siiyay in uu dambaal u gudbiyo guud ahaan ummadda waxaana madaxweynaha oo dhinaca nabadgelyada si weyn fariin ugu diray shacabka Soomaaliland gudaha dibadba uu ku yiri sidan horta nabaddu waa nolosha sidii ay sheegeen abwaaniintu waxaan leeyahay qof kasti oo reer Soomaaliland ah ama qof kastoo bani aadam ah waxa ku waajiban nabadda inuu wax ka soo horreysiyo waxa la yiraahdaa xagga bini'aadanka laba lahinjiyaba nabad baa ugu culus wax kasti waxa ka miisaan badan nabadda fariintan ummadayda u gudbinaya wax weeye nabadda ay maanta hayaan inay siday maanta u ilaalinayeen awal iyo si ka feejigan waliba maadaama xaalada jaararkiina ay ka jiraan inay ilaaliyaan bal soo jeedinayaan waxaan ilaahay uga baryayaa inuu nabadda ugu sii wado barwaaqo iyo horumarna ay gaadhaan insha Allah mustaqbalka soo socda Soomaaliland mustaqbal wanaagsan baan ilaahay uga baryayaa iyo inay inta u dhiman ilaahay u buuxiyo haduu ilaahay yiraahdo xaq dhaqaale iyo xaq horumarin iyo xaq aqoonsi intaba haduu ilaahay yiraahdo aad iyo aad baad maasatay waxaan aad u xasuusanay qurba joog fara badan oo caawa telefishinka Universal fursad u yeeshay inay ku daawadaan iyagana qurba jooga maxaad leedahay madaxweyne salaan iyo hambalyaan u dirayaa waxaan leeyahay Soomaalilandnimada mid ku ahaada aku qaybsanina waan oranayaa ninkii xisbi jecel maalintiisa isagoo Soomaaliland aaminsan xisbiga raba raaco laakiin halka gudaheega Soomaaliland wax dhaawacaya in kasta waa iska ilaaliyo. munaasabadan xalay ka dhacday qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo si weyn loo soo agaasimay ayaa sidoo kale fanaaniintu waxa ay ku soo bandhigeen madadaalo iyo majaajilo ku wajahan nuxurka ay xambaarsan yahay habeenkani waxaana xalay muuqanayay in si ka duwan sidii hore loogu xusi jiray xalay ay ka diiranayd isla markaana munaasabada u eegayd mid aad ugu dhow sida loo soo qaban qaabiyo 18 May oo ah maalin ay Soomaaliland si weyn ugu diga rogotay dhinaca xusaska Soomaaliland.
telefishinka caalamiga Universal oo kamid ahaa telefishinadii madasha ku sugnaa ayaa dadku si weyn ay ugu soo qulqulayeen iyagoo xiiseynayay inay farxadda awgeed u soo bandhigaan heladooda iyo saaxiibadooda qurbaha ku nool gaar ahaan qaaradda Yurub iyagoo telefishinkana ku sifeeyay inuu yahay